maxaa dhacaya haddii ciidamada midowga Afrika ee ku sugan dalkeena Soomaaliya ay isaga baxaan Soomaaliya? suurtagal ma tahay inay khawaarijtu ay dalka qabsadaan? ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin inay difaacaan dalka kana difaacaan cadawga khawaarijta ee Al-Shabaab? imise magaalo ama goobood ay haatan ku sugan yihiin ciidamada ka socda Afrika ee Soomaaliya joogo? muuqaalkan waxaan kugu wadaagayaa warbixin faaqidaada oo ku saabsan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo waxa dhici kara haddii ciidamada midowga Afrika ay dalka ka baxaan dabayaaqada sanadkan, gaar ahaan bisha December ee soo socota. soo dhawaada muuqaalka leeg noo saaro oo si share gareeya haddii aad ku faraxsan tihiin inay ciidamadaas ka baxaan dalkeenuna, aragtidiina la wadaaga muuqaalkana leeg noo saaro. sidaad wada ogtihiin dhammaantiin waxa halis ku jira inay istaagaan gibi ahaanba dhaqaalihii howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. dowladda Mareykanka ugu dambeysay waxay ku dhawaaqday inay gibi ahaanba joojinayso dhaqaalaha ay ku taageerto howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay 31 December ee sanadkan, taas oo ka dhigan inay ciidamadaasi boqolkiiba 50 dhaqaalihii ay heli jireen ee meesha ka bixi doonaan, maadaama Mareykanku uu ahaa dowladda ugu weyn ee bixisa dhaqaalaha ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. horta ciidankan xagee joogaan haatan? ciidamadan marka laga hadlayo howlgalladii ka socday dalka laga soo bilaabo 2022 ilaa iyo maanta wax badan oo saameyna kuma lahan difaaca dalka. waxay joogaan magaalooyin aan badnayn oo ku yaalo gobolka Shabeellada Hoose oo ilaa 3-4 magaalo ah, halka gobolka Shabeellada Dhexena ay ka joogaan kaliya 2 magaalo. waxaa jira haddaba ciidamo ka socda midowga Afrika oo iyana ku sugan gobolka Hiiraan, gaar ahaan Beledweyne, Buulaburde iyo Jalalaqsi. sidoo kalena ciidankaasi waxa ay joogaan meelo kamid ah gobolada Bay, Bakool, Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo. aan kala qaadno marka, waxaa jira ciidamo fara badan oo ka socda dalalka Kenya iyo Ethiopia oo ku sugan gobolada Gedo, Bay, Bakool, Jubbada Hoose iyo meelo kale oo dalka kamid ah, kuwaas oo aan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, isla markaana aan helin dhaqaalaha fara badan. ciidankan haddaba dhaqaalaha ugu badan kuwa uu ku baxo waa ciidamada ka socda Uganda iyo Burundi, waxaana ay joogaan magaalooyinka ku yaala gobolka Shabeellada Hoose oo ilaa 4 magaalo ah, iyo sidoo kale magaalooyinka Mahaday iyo Jowhar oo iyana Shabeellada Dhexe ah. ciidankan wax dagaala oo ka qayb qaateen ma jirin, waxaana laga bilaabo xarar dheere laga soo bilaabo ilaa magaalada Muqdisho, magaalooyinka gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud ee ciidamadu ay gacanta ku hayaan waxa kaliya ay ku kooban tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kalena Galmudug oo dhan ma joogaan marka laga reebo tiro ilaa 30 askari oo Djibouti ka socda oo jooga garoonka Dhuusamareeb. Galmudug oo dhan waxa gacanta ku haya oo cadawga khawaarijta ka difaacayana waa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. marka taa la eego waxay ka dhigan tahay in ciidamada Soomaaliyeed awood ay u leeyihiin inay ka difaacaan cadawga khawaarijta ah bilaa ciidanka midowga Afrika. laakiin dad badan ayaa aaminsan in waxa ugu weyn ee khawaarijtu ay ka cabsanayaan ay tahay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ciidamadooda, isla markaana ay dalka qabsan lahaayeen haddii ciidamadaas ay joogi lahayn. dad badan ayaa sidaas ku dooda, laakiin waxaan idin sheegayaa xaqiiqadu sidaa ma aha. ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed awood ay u leeyihiin inay ka difaacaan cadawga khawaarijta ah dalka. meelo fara badan ayay kaligood ka difaacayaan, haatana taya ahaan, tiro ahaan iyo qalab ahaan iyo awood ahaanba ciidamada Soomaaliyeed way sii kordhayaan, waana sii tayeynayaan qalabkooda ay haystaan. haddaba dad badan ayaa aaminsan oo Soomaaliyeed oo madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa ciidamaduba ay ugu horeeyaan inay ciidanka Soomaaliya hadda ay awood u leeyihiin inay dalka ka difaacaan khawaarijta. laakiin lama oga waxa dhici doono iyo sida ay wax u dhici doonaan, maadaama aan hore loo tijaabinin oo tan iyo markii caasimadda iyo gobollo fara badan khawaarijta laga saaray ay joogeen ciidamadan ka socda midowga Afrika ee Soomaaliya. sidaas darteed boqolkiiba boqol waxa dhici doono lama hubo, laakiin waxa la hubaa waxay tahay in cadawga khawaarijta ah meelo fara badan oo dalka kamid ah ay hortaagan yihiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. maxay kula tahay adigu? aragtidaada nala wadaag, muuqaalkana leeg noo saar oo si share gareeya. aad ba u mahadsantiin.